isu soo bax ballaaran oo lagu taageerayo nabadda ka hana qaaday deegaanka Adhcadeeye ee gobolka Sool ayaa maanta ka dhacay isla deegaankaasi kaasoo ay soo qaban qaabiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaaladaasi Adhcadeeye ee gobolka Sool isu soo baxa lagu taageerayo nabadda ayaa ujeedadiisu ay soo afjaridda colaad dhawaan ka dhaxdhacday laba beelood oo walaalaha kuwaas oo wada degan magaaladaasi Adhcadeeye iyadoona dadka isku soo baxay ay ku dhawaaqayeen hadallo ay ku xoojinayaan nabadgelyada ka hana qaaday deegaankaasi Adhcadeeye odayaal waxgarad aqoon-yahan culimaaddin haween ka hadlay isu soo baxani ayaa dhamaantoodba ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay nabaddu sheegayna in loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado wax walbana lagu dhameeyo wada hadal iyo turxaan bixin إلهي سبحانه وتعالى وحولي هم يقسمون رحمة ربك ما وحي كلا قيبصنا حريص إلهي سبحانه وتعالى بركود بركة كلا وحانو قدقنا الشقالة هدي أمد الله قولا دقلا أمد وذا قنية محان كودا مصالح ذو عادي من نقطين ويسكوش قيسنا هدي محان كودا مركا مقالة ذاجري Adhcadeeye أي لبكلا النقطو سي مصالح دقالة أسو قليا إلا إلهي سبحانه وتعالى وحوليه هاي barka qayb kamida waxaanu ka dhignay inay isu shaqeeyaan oo ay isu noqdaan dad isu adeega oo dhaqaalo halka uu ka yimaado salaaday wax walba la mar xoolo dad wax walba waa nabadgelyo xoolo laba hal hadaan nabadgelyo la helin ragna laba hal hadaan nabadgelyo la helin adduunka waxa ugu qaalisan waa rag waxa ku xigaana waa maal hadday colaadi dhacdo ragana waa la waayaa maalkana waa la waayaa ma been baa mise waa run maanta wax yar oo aynu nabadgelyadeena kaga shaqaynayno aynu war maanta aynu halkaa isugu nimaadno 20 adhiya 10 adhiya ku qabanno Fukushin iyo reer Cunniyo waxa laga yaabaa inaynan inaga soo bixin aan la helin markaynu sababka isku guranno oo qolo waliba banaanka u baxdo in boqol geela la qalo ay baa dhacda waxaan leeyahay naftiin iyo maalkiin nabadda u hura adduunka nabadda ugu qaalisan Adhcadeeye waxaynu ugu deeqnaa waa nabadgelyo waxaynu nolol ku gaadhnaana waa nabadgelyo adduunkeena iyo aakhiradeena waxa u roonina waa nabadgelyo in laga shaqeeyo in la raadiyo u baahan tahay halkan waa laga dhaartay diinta Ilaahay baynu qaadan waa maqlaysaan qof walba qofkii gaaloobay ee Ilaahay ku xadgudbayana waa maqlayaa qofkii Ilaahay ama hortiisa raacayaana waa maqlayaa waa isku dhaasanay nabadnayna aws kulama kala maarmi kartaan talo kuma kala maarmi kartaan haddaad saa u garanaysaan wax idinka khaldami kara oo idinka xumaan kara ma jiro laakiin haddaydan taa ogeyn ee siyaasado iyo waxyaabo kale oo meelo kale laga keenay idinkala dhex galaan lunte wax allaala iyo wax idin qabsoomayaan ma jiraan waadna kala haraysaan waadna kala lumaysaan isogaan maysaan marka Ilaahay waxaan ka baryayaa talada nabadgelyada ee aad saaka isugu soo baxdeen iyo nabadaynta in Ilaahay idin la xoojiyo idinkuna xoojiyo qalbigiinana geliyo aadna ku wada dhaqantaan midda kale waxaan leeyahay dadka meesha isugu niga weyn qofiga weyn ma niga weyn niga abuga laga yaabaa nin la oo dhacay baa ragkiisa waa wax baxay wax tiifa ay dadkii hore waxay ka sii jooga wixii la soo ahaayo wixii la isku qiimin jiray waa garanayna laakiin dadkii kan dambe garan maayaan haddana waxa weeye anigu doonayno ana doonayno inaan tamay galay kii sameeyay heesu sidii hawada sameeyay qarin mayn oo hadii la jaan cadii taxmayna qarin mayn waa la qabayna idina sileeg waxaana nabadgelyo ay ku helayeen qof waliba markii isagu nabadgelyada soo dhaweeyo gurigiisa nabadgelyada dhigo ilaa qof waliba marka uu isagu qofka islaamka nabadgeliyo ayaa isagana Ilaahay badbaadiya isku soo wada duub oo isu soo baxan lagu taageerayo nabadda ka hana qaaday deegaankaasi Adhcadeeye ayaa ku soo beegmaya xilli dhawaan la soo afjaray colaad ka dhaxaysay laba beelood wadaaga kuwaas oo wada degan magaalada Adhcadeeye ee gobolka Sool tanina ay qayb ka tahay taageero lagu xoojinayo nabadda beelaha wada degan Sool Sanaagi taasi oo laga gaaray guulo waaweyn oo wax ku ool ah Mukhtaar Cabdi Jaamac TV caalamiga Star Adhcadeeye